kulan xiiso badan ayaa garoonka Hargeysa Stadium ku dhex maray gobolada Badhan iyo Hawd oo ahaa ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo marayay sideed dhamaadka ciyaaraha iyadoo kulankan labadan kooxood ay noqdeen labadii kooxood ee lagu furay ciyaaraha isreebreebka ee tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland kooxdii baxdaana ay u soo baxayso afar dhamaadka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland haafkii hore ee ciyaarta labada kooxoodba waxa ay la yimaadeen ciyaar dhammaystiran oo ay ku doonayeen inay goolal ay ku helaan ciyaar weerar iyo weerar celisa ayay Badhan iyo Hawd bilowgii ciyaartaba isku soo qaadeen kulankan oo xamaasadiisu aad u sareysay ayaa haafkii hore daqiiqadii 44aad ay heleen gool rikoodh ah amaba gool kula gobolka xulka Hawd iyadoo khalad uu sameeyay ciyaartoyga difaaca gobolka Badhana lagu ciqaabay laguna qabtay laakiin rikoodhahaasi uu soo dul istaagay daqiiqadii 44aad ee haafka hore ee ciyaarta weeraryahanka Aamin afka hore uga ciyaara waa Aamin ayaan rikoodhahaasi u suurtagelin gobolka Hawd inuu uga dhigo gool waxaana ku dhacday birta taasi oo dib u soo noqotay oo gobolka Badhan ay iska saareen haafku waxa uu ku soo dhamaaday eber labada kooxood isku dhaafi waayeen markii dib loogu soo noqday haafkii dambe ee ciyaarta labada xul gobolba ay la soo tashadeen macallimiintooda iyo maamulka kooxda ayaa waxa u suurta gashay xulka gobolka Badhan in daqiiqadii 47aad ay goolka koobaad ee ciyaarta ay la yimaadaan isagoo ciyaartoyga afka hore uga ciyaaraya ee lambarka 10aad xidhan ee Baxwal uu goolka koobaad u saxeexay xulka gobolka Badhan ciyaarta xamaasadeeda iyo jawiga garoonku mar qura ayuu isbedelay markuu goolkaasi dhashay labada gobolba waxay noqdeen mid weerarka oo ay soo qaadayaan gobolka Hawd ay ku doonayaan inay barbaraha ciyaarta keenaan iyo gobolka Badhan oo kubado qurux badan si qurux badan goolwadaha iyo difaaca isku xidhkii lahaayeen iskaga difaacay in haafkii dambe ee ciyaartuna ay ku soo gabagabowdo iyadoo labada gobolba weerar ay isku qaadayeen hal iyo hal waqtiga dheeriga ee ciyaarta 30 daqiiqo ayaa lagu daray ciyaarta 30 daqiiqo ay keeneen in labada kooxoodba ay sii wataan difaacashada weerarka iyo sidoo kale kubad isku dhiibashadeedu aad u qurux badan yahay 30 daqiiqana waxa uu ku dhamaaday hal iyo hal ciyaarta gabageeda lagu soo afmeeray waxa la galay oo loo dhigay labada gobol ee Badhan iyo Hawd rikoodhayaal inay ku kala baxaan maadaama afar dhamaadka ciyaarta ay u baxayaan rikoodhayaashii waxay u suurta gashay in gobolka Badhan labadii gool ee ugu horeeyay ay laagtaanba aanay u suurta gelin ee labada goolba laga qabto halka gobolka Hawd ay u suurta gashay in isagana hal rikoodh laga qabto halka uu 4 gool uu dhaliyay gobolka Badhanna 3 uu dhaliyay labana laga qabtay kulankuna waxay guusha ku raacday xulka kubadda cagta ee gobolka Hawd inta ciyaartu socotay waxa gees socday tartanka orodada ee 1500 mitir waxaana ku tartamayay 14 gobol oo ka qayb galaya ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland orodyahanadeda waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud koobaad ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan mahad celinaa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan u taagan inuu bulshada Soomaaliland u gudbiyo ama u tabiyo ciyaaraha kala duwan ee gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland haday tahay ciyaaraha fudud haday tahay kubadda cagta iyo haday tahay basketballka iyo kuwa dambe oo insha Allah sanadada dambe la soo kordhin doono maanta halkan waxaan ku qabanay orodka 1500 la yiraahdo 1500 waxa weeyaan 3 wareeg iyo badh garoonka orodkan waxa ordaya 14 gobol ee halkan ku tartamay Jamhuuriyadda Soomaaliland 14 gobol waxa weeyaan tartan baa la galay la isma orodkan ma bilaaxnaaqad wuxuu kaga duway ciyaaraha kale ma bilaaxnaaqad marka lugtaada wax ku siiso baad helaysaa orodkii 3 wareeg iyo barka hawa lagu kala calaf qaaday waxa kaalinta koobaad markaa galay inoo gobol u sheegayna gobolka Saraar ayaa 1500 maanta kaalinta koobaad galay kaalinta labaadna waxa galay gobolka Sanaag kaalinta saddexaadna waxa galay gobolka Maroodijeex oo marti gelinaya ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland kulli ciyaaraha fududaa waa gobol berito la nasanayna saad dambe hadii Ilaahay gaarsiiyo salaasada waxaan qabanaa orodkii ugu dambeeyay oo 5 kuna orodkaasi waxa weeye 12 wareeg iyo badh garoonka waana orodka ugu culus ayuu noqon doonaa insha Allah marka waxa weeye dadweynaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo bashbash iyo barwaaqo iyo inuu Ilaahay caafimaad qabin ugu gaaro ciyaaraha ka dambeeya insha Allah biidnillaahi kariim wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu goob joog ka ahaa intii tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay socdeen boos Mire Maxamed ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay marxaladaha ay marayaan ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida wuxuu socdeen oo arkayseen ciyaaru si qurux badan bay ugu dhaceen waxayna hadheena waa dabayaaqadii imika waa knockout qodobada laga badan way baxaysaa
laakiin dee wax ka soo horreeyey gobollo horoo baxay iyaguba aakhirkana laba qolo wada qaadi mayso guruubunbaa qaadiya gobol hal gobolunbuu raaciya koobku marka waxaan filayaa inay sida ciyaartooyguna aqoonsan yihiin sida akhlaaqda leh sharafta leh si loogu dhiirado in ardama badan la qabto waa inay sidaa noogu dhammaadaan haddii alla yidhaah insha allah bidnillah idinkuna aad baa umahadsan tihiin tiifiga qaranka sidaa u tabinaysaan aad baan idinka mahadnaqaynaa wasiirkaan u mahadnaqaynaa wasaaradda dhan baan u mahadnaqaynaa intiina halkan ku qoran baan u mahadnaqaynaa sida wanaagsan aa u tabiseen